muuqaalkan idiin muuqda waa ilmo yar oo jiray muddo hal bil oo gabadha isla markaana ku dhalatay arrin mucjiso ah. ilmaha yar waxaa gadaal kaga yaala cad weyn oo u eg muuqaalka bini'aadanka. qoyska ay ka soo jeedo ayaa ah qoys dan yar oo degan miyiga magaalada Caynaba, waxaana cisbitaallo ku yaala magaalada Hargeysa oo qoyskan ay geeyeen ilmahan yar inaan dalka gudihiisa waxba laga qaban karin. Sheekul Beledka magaalada Caynaba Sheekh Maxamed Sira Daqare iyo Sheekh Aadan Axmed Farlajo ayaa maanta qoyskani ku booqday magaalada Caynaba. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay waalidka dhalay ilmahan yar ee ku dhashay arrinka mucjisada, waxayna ummadda muxsiniinta ka codsadeen inay soo caawiyaan si ay dhakhtar dalka dibadiisa ugu qaadaan. wax la aniga Faysal Nuur Bile bishii saddexaad 26 inaad heer dhalatay maxaan sheegay markaa ilaahay waxaan goynay dhakhtarka Hargeysa waxaan la kuliyay dibad mooyaan dalka waxba laga qaban maayo. annaguna maxaan sheegay waxaan iska qoys tayar oo meel tuulo iska yaala dabeetana waan iska soo celinay dibadii waxaan ku geynay maanaan hayn tii walaalahayga muslimiinta dalka dibadda meesha jooga waxaan ka baryaynaa inaan soo caawiyaan ilmaha yar loo soo caawiyaan. waxa jirtay caawa ku 29 habeen ay jirtay. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin. ilmaha yar wuxuu dhashay bishii labaad 26keedii waxa weeyaan waa ilmaha isa saaran waxa weeyaan de qofka caadiga iyo waxa kale de amaamirta alle de ilaahay ku rakibay marka waxa weeyaan waxa uu ku dhashay gobolka Saraar degmada Caynabo miyigeeda meel kamid ah. marka dhakhtaradii Hargeysa ayaan u geynay dhowr meelood waxaana la ku yiri dalka gudihiisa waxba laga qaban maayo dibad mooyaane. aduun markaas aanu de ku qabatino dibad waxa weeyaan waanu weynay kulay marka waxaanu de codsanaynaa dadka muslimiinta meel ay joogaanba dalka gudihiisa iyo dibadba waxa weeyaan inay wixii ay macna de nagu taageeri karaan ay nagu taageeraan oo waxa weeyaan sidaanu dhakhtar u geeyno. sidoo kale Sheekul Beledka magaalada Caynaba Sheekh Maxamed Sira Daqare iyo Sheekh Aadan Axmed Farlajo oo kamid ah culimada diinta gobolka Saraar ayaa ummadda muslimiinta ka codsaday inay soo caawiyaan qoyskani haysta ilmaha yar ee xanuunsanaya si dhakhtar dalka dibadiisa loogu qaado. ilaahay baa mahad iska leh. haddaan inta ku dhaafo halkan ilmahan yar aan dul taaganahay ilmaha yar waa aragtaan waa ilmo yar oo xagga dambe qof kaga sawiran yahay weeye madaxiisa kaga sawiran yahay. markii dhaqaatiirta la geeyay meelahan wadankana waxa la dibad meelahan wax lagama qaban karo oo waxa weeye waxaas xanguulaha ayuu gashan yahay. marka qoyskii dhalay waa qoys tayara oo awood u waayay inay maaragtay inay meel qabasiyaan awood uma leh. marka waxaan leenahay dadka muslimiinta meel kasta joogaan inay soo caawiyaan dibadun baa la yiraahdaa dalka gudihiisa kuwa jooga kuwa dibadda ka hanti badan laakiin waxaad moodaa inay meel ka yar ka naxdin badan yihiin baasi weeye. marka waxaan leenahay wixii muslima arka sawirka ee waxaysta ha soo caawiyeen waayo nabigeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ma naqasat sadaqatun bimaalin bal tasiid sadaqadu maalka ma nusqaamiso way siyaadisaa. ومحي كو سيادينيسا وخي كو هدhay baa ilaahay ku barakaynaya baraka ku gelisa hantidu hadaanay baraka lahayn ilaahay baraka ku gelin waxa kugu dhaafisay ruf marka barakada ilaahay ku geliyo ayay maaragtay wixii wax baxsaday ilaahay baa barakada u gelaya. halkan waxaanu dul tobanahay oo aan dul joognaa oo aan wax ka duubaynaa ilmaha yar oo bisha jiray labada maalmood la ilmahaas waa ilmo dhashay qof baa madax caadiya ba xagga dambe kaga yaala oo madaxii qofka oo sawiran ayaa dabada kaga yaala dib badan buu ku hayaa qofkii lama soo toosin karo lama soo qaadi karo hooyadii naaskii ma jaqsin karto waa in qof dambena uun madaxan dambe daba sidaa wuxuu waa ubad waa la ogyahay ilmaha yar iyo caruurtu waa thamaratul qalbi waa fu'aadul qalbi waa qalbiga midhiisi qof kasta oo wax dhalay uu garanayaa nibta uu ku hayo hooyada wuxuu garanayaa ilmaha yar naxdinta uu leeyahay ee sabiga ah. marka dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu amrayaa inaynu maaragtay isu kaalmaysano
wixii khayr iyo wanaag ah marka qof kasto arintaas ay daqmayso oo muslim ah oo arka fiidiyowgaas waxaan leenahay hala soo caawiyo qoyska